ninkani mar ayuu qarka u fuulay inuu macaluul u geeriyoodo. Caseeyanimo iyo baabuur dhaqis ayuu ku soo ababay, balse si lama filaana ayuu uga soo muuqday liiska maalqabeennada adduunka. waxaa lagu tilmaamay tuugii ugu xariifsanaa burcadda internetka waayahan. dhaqidda lacagta madow iyo dhicidda akoomada shirkadaha caalamiga ayuu malaayiin dollar ka tabcaday. waa ninka ku dalxiisay Castle Helicopter, helikobtarka dunida ugu qaalisan. waxay ku fadhidaa 13.2 bilyan oo dollar. kaamarooyinka Imaaraadka Carabta ayaa qabtay isagoo ku tamashlaynaya 3 ka mid ah gawaarida dunida ugu qaalisan, sida Lamborghini Veneno, Rolls-Royce Blue Tile iyo Bugatti Divo. Ramon Abbas waxa uu ka dhashay qoys sabool oo degan magaalada Lagos ee dalka Nigeria. waxa soo korsatay hooyadii kolkii ay kala tageen aabihii, oo ahaa dareewal gaadiidka dadweynaha u kala goosha degmooyinka Lagos. wax walba caadi ayay ahaayeen ka hor dhalashadiisii, balse waxa uu la kowsaday macaluushii baahday ee ay keeneen xasilooni darradii siyaasadeed ee ka aloosantay waddankooda. Nigeria, soo saaraha shidaalka ugu badan Afrika, ayaa 90maadkii waxa laga joojiyay qulqulka maalgashiga shisheeye, waxaana istaagay dalabyadii dhoofinta saliidda ceeriin, taasoo uga sii dartay bulshada oo barkood noloshoodu dhulka tiilay. sida laga soo xigtay wargeyska The Cable, Rayhash Babi hooyadii ayaa ku khasbanaatay inay waddada dhinaceeda ku iibiso rootiga si ay u soo saarto nolol maalmeedka isaga iyo 2 walaalihiiya. laakiin Hash Babi markii uu koray waxa uu la soo baxay dabeecad qalafsan kolkaasoo uu dugsiga ka saaqiday. hooyadii ayaa dayrisay waxa uuna go'aansaday inuu nolosha keligii la halgamo. kolkaasoo uu caseeye ka noqday magaalada Lagos, waxa uu uga sii gudbay xirfadda gawaari dhaqista. saaxiibadii waxay ku qalqaaliyeen inuu nolol cusub ka bilaabo Abuja, halkaasoo uu kaga biiray gaangiska ugu khatarsan Nigeria. waxa uu bartay cilmiga kombiyuutarka oo ku gaaray burcadnimada baraha internetka. qoyskiisu waxay ula baxeen Ramon Abbas, balse howlgallada burcadnimada ayuu ku qaatay magaca Yahoo Boy. wuxuu si caan ku yahay Rayhash Babi, oo ah magaca ugu qoran barta Instagram-ka. 2.5 milyan oo taageerayaal ayaa ku xiran boggiisa xiriirka bulshada. dalxiiska joogtada, adeegsiga diyaaradaha iyo hoteelada dunida ugu qaalisan ayaa sababay baaritaan ay FBI-da Mareykanku ku samaysay. 5 sano ee ugu dambeeyay waxa uu ku raaxaysanayay Imaaraadka Carabta iyo Malaysia oo uu deganaansho ka helay. goor habeena, isaga iyo saaxiibadii oo degan hoteelka Palazzo Versace oo ku yaala magaalada Dubai, waxa uu soo daatay ciidamada FBI-da, waxaana gacanta lagu dhigay Rayhash Babi iyo 11 saaxiibadiisa. howlgal loogu magacdaray Foxhunt 2. dembi baarayaashu waxay ku qabteen in ka badan 150 milyan oo dirham, una dhiganta qiyaastii 40 milyan oo dollar. 13 baabuurta raaxada ah oo qiimahoodu u dhan yahay 7 milyan oo dollar, 20 laptop, 47 telefoon oo casri ah iyo 15 aaladda kaydka harddiskiyada ah. sida laga soo xigtay FBI-da, waxa uu dhacay 390 milyan oo dollar. 14 milyan oo lacagtaasi ka mid ah ayay ku dhaceen weerar lagu qaaday bangiga Fidelity Malta oo dhacay bishii Febraayo ee sanadkii 2019. lacagtaas ayaa lagu wareejiyay bangiyada macaamiil ganacsi oo caalami ah, kuwaasoo akoonadooda laga kala furay wadamada Mareykanka, Ingiriiska, Czech Republic iyo Hong Kong. Madrasatul Muallimul Qur'aan, meel kastoodba adduunka aad ka joogto dushiisa minankaaga dhexdiisa, adoon meelna u dhaafin online maado ku qaado baro maanta duruusta. mabda'eena islaamka qur'aanka ka meerso axaadiista ka miiso, siiradii nabigeena sallallahu calayhi wasallam si yarmaanka ku kaydso. madrasatul muallimul qur'aan waa malcamad online ama huraan aan la dhaafin midka aan ka warhayni. malaa waa maqfuul ee maanka ha u furo haatan. meel kastoo daafaha caalamka aad ka joogto si online ugu biir mareegta xifdinta qur'aanka kariimka madrasatul muallimul qur'aan oo kala xiriir nambarada WhatsApp-ka ee shaashada kaaga muuqda. FBI-du waxay kaloo Rayhash Babi ku soo eedeysay inuu ku fashilmay howlgal internetka oo uu isku dayay inuu ku xado 124 milyan oo dollar oo ay leedahay koox kubadda cagta oo ka dhisan Ingiriiska, inkastoo aan la magac dhabin. sida lagu daabacay eedaha loo soo jeediyay Rayhash Babi, dhaqaalaha ugu badan ayuu ka helay khiyaanada lacagta madow. dad badan ayuu ku qanciyay inay bixiyaan lacagaha lagu iibiyo kiimikooyinka dheeha looga saaro lacagta madow, kolkaasoo uu kula heshiiyey inay heli doonaan 3 jibaar lacagta ay bixiyaan. xidigaha reer England ee Tammy Abraham iyo Fikayo Tomori
ayaa ka mid ah dadka caanka ah ee saaxiibka la ah Ray Hashbabi. waxaa lagu xasuustaa inuu sanadkii 2020 ku soo dhoweeyay magaalada Dubai. Noha Nabil oo ah wariye ku soo baxday 10 haweenka ee ugu saameynta badan warbaahinta bulshada Carabta ayaa lagu eedeeyay inay ka qayb gashay hawlgallada dhaqista lacagta madow maadaama ay saaxiib la ahayd Ray Hashbabi. xeeryaalaha guud ee Kuwait waxa uu amar ku bixiyay in la xayiro hantida iyo socdaalka Noha Nabil. Ray Hashbabi kadib qirashadiisii eedaha loo soo jeediyay waxa uu wajihi doonaa 20 sano oo xabsi ah sida uu qabo xeerka Mareykanka ee qaybta wax isdabamarinta iyo falalka burcadnimada lacagaha adag.